علومية عوامة أذيكو عودين على كنا كوسيين عبد سوداو waxaa maanta garoonka diyaaradaha Washaaka ee magaalada Gaalkacyo ka soo degay Cabdikariin Khaliif Cabdi Dalac oo u taagan qabashada xilka xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee sanadka 2016 gudihiisa la soo dooran doono waxaana garoonka diyaaradaha Washaaka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo musharax ayaa markuu ka soo degay diyaaradii uu la socday ayaa wax uu gacan qaaday bulshadii ku soo dhaweysay gudaha garoonka isagoo ugu mahadceliyay soo dhaweentooda مسؤولين كثير سن معمول كقبل كان دجمدا أيها سود ويا مشرحة. مدن حل من دونه ورجينا واحد هذين يصير إلهي كوسالو وحن كلنا هي أنو دجمدية كوسودو دجمدا قال كعيو مركوبات يا مرلا بعد مرة. مجالات هذه ويا إلهي وحن كرجينا إن واحد دون سنة عبد الخليفة هذا الله إدمه حلمان بدونه هي وإلتها أنا قدومية دجمدا مصير إن كل عدو كدونه هي ويسمع يساعي حسيسان أرنينا. bulshadii soo dhaweysay musharaxa ayaa sheegay in deegaanku u baahan yahay mas'uul ka shaqeyn kara danaha shacabka ku nool gobolada dhexe ee dalka ayaantan musharaxiinta waa iska soo daba dhacayaan nin walbana nasiibkiisu ka qaadaya marka waxa weeye dad badan baa soo dhaweyntaada ka soo qayb galay soo dhawow waxaan ku rajaynaynaa inaad guuleysato ragii hore oo iga horeeyay aad iyo aad u soo dhaweeyaan Cabdikariin ku soo dhaweynaa ku soo dhawow waa Ilaahay mahadiis Ilaahay waxa ka rajaynaynaa inaad heshid sida wax aad doonaysid waxa nasiib wanaaga oo aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa weeye waxa tahay wadanka u dhashay ma ahid inaan dalka iyo dadka iyo maagis aqoon ma ahid ma xildhibaan doonaha da'da yar Master Cabdikariin oo dareemi karna inuu siyaasadii Soomaaliya qayb libaax ka soo qaatay maadaama aad madaxweynayaashii Soomaaliya laba madaxweyne la soo shaqeysay maskaxdii siyaasadda waan kaaga fadhinaa maanta nin siyaasad ku cusub ma tihid dalkaaga xisaabtii uu ka rabay maskaxdii hore siyaasadda iyo maskaxdaada Gaalkacyaba waa inaa isku dartaa ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay musharaxa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo sanadkan hadda lagu jiro 2016 dabayaaqadiisa waxaa la soo dhisayaa dawlad qaran oo Soomaaliyeed dawladdaas anu waxaan ahay musharax u taagan xildhibaanada galmudug ay qaybta u heshay ee dawladda dhexe waxaan ahay musharax u taagan waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkii talada iska lahaa oo shacabka ahaa maanta la yiraahdo la tashado in wax la idinka weydiinayo masiirkiina in taladu wax badan baa dad idin garanayeen ama idin dooran ay idin mataleen maanta waxaan rabnaa mustaqbalku wuxuu ku jiraa gacmihiina dadkii idinka wax idin qaban lahaa oo wadada hadda sheegteen iyo canaabaha badan oo aan ognahay wax ka qaban lahaa inaad maanta soo saartaan Soomaalidu waa dad dhaliil badan dhaliishu waxaan leenahay wixii hadda halaaba xaqiinay soo jirtaa anu waxaan diyaar u ahay wixii aad xaq u leedihiin inaan dawladda dhexe ka keeno sida dadku inay wax barasho helaan inay iskuul helaan in deegaankan dadka hadda waa batay in loo helo matalaad iyo degmooyin iyo maxaan ku iraahdaa infrastructure-ka in wax laga qabto shaqayn doonaan rabitaankeena qofka la rabo inuu xildhibaanka idin noqdo ma ahan inuu dhaqaale badan haysto ma ahan inuu dadka wax dheer yahay waxa la rabo inuu yahay qof idinka idin dabacsan qof idinka danihiina ka shaqaynaya qof idinka aad baahidiina si fudud ku gaarsiin kartaan oo aad ku kalsoon tihiin daacadna ay ka tahay inuu wax qabto Libin Cajiib Xaaji TV Universal Gaalkacyo